Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida shortcut-ka desktop-ka loogu sameeyo ama sida flash disk-ga shortcut looga soo sameeyo desktop-kana loo keeno ama meel ka mid ah kombiyuutarada. Marka cashirka si fiican ula soco, practical-na ka sameey haddii Ilaahay yiraahdo. Maanta waxaan baranaynaa sida shortcut-ka desktop-ka loogu sameeyo. Saa ka aragtid waxaa meesha ku haysanaa hal folderkaasi baad click siinaysaa. Click markaad siisid right click baad siinaysaa, kadibna create shortcut baad ku dhufanaysaa. Muhiimadda shortcut-ka uu leeyahay waa maxay? Shortcut-ka waa wuxuu xiriir la leeyahay folder-ka ama file-ka original-kiisa. Maahan kaliya folder-ka in lagu sameyn karo, file-asha waa lagu sameyn karaa, programyada waa lagu sameyn karaa. Marka xiriir buu la leeyahay wixii ii sheeg folder-ka shortcut-ka ku jiro, midka original-kana way ku jiraan. Haddii aad tirto shortcut-kaasi unbaa tirmaayo, original-ka ma tirmaayo. Laakiinse haddii original-ka la tiro, waa midka aad ka samaysay, ama document ha ahaado ama program ha ahaado, wuxuu doono ha ahaado, midka shortcut-ka ma shaqeynayo haddii midka original-ka uu meesha ka maqan yahay. Marka shortcut-ka dhowr nooca loo sameyn karaa. Hard disk-ga kasoo sameyn kartaa oo desktop-ka usoo diri kartaa. Waxaad kasoo sameyn kartaa oo kale flash disk-ga, markaa kadibna desktop-ka usoo diraysaa, ama taleefankaaga aad shortcut ka sameyn kartaa. Haddaad computer-ka ku xirto, desktop-ka usoo diri kartaa. Maxaa yeelay shortcut-ka wuxuu ku fududeynayaa in ii sheeg wixii meel fog ku jiro inaad dhaqso aad geli karto. Maxaa yeelay desktop-ka waa meesha kaliya aad marka hore aad arkaysid, ama aad rabtid in wax kasto aad meeshaas ku saarnaadaan. Marka hore ku dhufanaynaa start button-ka markaa ku dhufatid computer waa ku dhufanaysaa. Hadda Windows 7 isticmaalaysidna waa isla process-ka, waa isla meeshii. Marka Windows 7 haddaad isticmaalaysid waxaad ku dhufan kartaa qaybtan Windows Explorer baad ku dhufanaysaa, ama start button-kaad ku dhufanaysaa. Kadibna start button markaa ku dhufatid computer kasii galaysaa. Computer markaa kasii gashid, flash-ka kusoo xiraysaa computer-kaaga. Marka flash-ka markaad computer-ka kusoo xirto, flash-ka marka computer-ka kusoo xirto, flash-ka wuu soo baxayaa, waa soo geliyey. Marka kadib flash-ka meeshaas ayaad ka arkaysaa, refresh baa leedahay. flash-ka marka uu ku soo muuqanaya. Marka flash-kii waa kana wuu soo baxay. Marka flash disk-ga markaa kusoo xirtid, waxaa rabtaa ii sheeg documenti ama program, ama waxaa rabtaa in ii sheeg desktop-ka aad keento file. Kadibna right click aa siinaysaa, open baa leedahay, ama double click baa siinaysaa. Then gudaha markaad gasho folder-kan from flash du baa waxaan ka sameynaynaa shortcut, waxaan u diraynaa desktop. Haddaa fiirisid desktop-ka laba folder kaliya saaran, laakiinse markaan dhaho folder-kan right click aan siiyo, kadibna waxaan sii tagayaa send to. Markaan waxaa lasii tagayaa send to markaad tegtid desktop baa kasii tegaysaa. Then waxaad leedahay desktop create shortcut ka samey. Then shortcut-ka saas uga sameysmaya. Waa kana shortcut-ka haddaad furto shortcut-ka waa kana waa furmaya, wixii ku jirana waa arki kartaa. Marka aan isla aragna haddii aan flash disk-ga ka saaro maxaa dhacayo? Flash disk-ga haddaan ka saaro shortcut-kan ma shaqeynayo. Marka flash disk-ga ka saaraya. Flash disk-ga markaa ka saaraysid, calaamada taskbar-ka tagaysaa. Taskbar-ka qaybtan notification area baad ku dhufanaysaa. Kadibna calaamada save remove baad click siinaysaa. Markaad click siiso, flash disk-gaaga ayaad dooranaysaa. Flash disk-ga waa kana eject mass storage baa leedahay.
computerka lagama saaro flash diskiga ilaa aad eject dhahdid. Eject waa inaad dhahdaa, kadibna save to remove hardware buu leeyahay. kadib markaas ka saari kartaa notification-kan yar markuu ku siiyo waad ka saari kartaa. then flash diskiga haddeertaan waa ka maqan yahay. okay, then filekii laakiin shortcutkii weli waa noo samaysan yahay. haddii aan kan iska xiro, aan flash diskiga folderkii aan shortcutka kasoo sameeyey desktop ku saaran yahay. marka shortcutka maxaa lagu gartaa? falaar yaroo qaloocan uu leeyahay. okay, falaarta yaroo qaloocan baad ku kala garanaysaa, ama file ama program kulligood shortcutka ka samayn kartaa, laakiinse falaartaasuu yeelanayaa qaloocan. then waa furaysaa, wuxuu ku leeyahay problem with shortcut buu kusoo saarayaa. the drive-kani or network connection-ka that the shortcut from flash bu-temp shortcut linkiga refers to is unavailable waayu leeyahay shortcutka. make sure ku leeyahay iska hubi that the disk is properly inserted, diskiga ama flash diskiga inuu ku jiro iska hubi, or the network ama qadna way noqon kartaa. shortcut waa kasoo samayn kartaa. resources is available and then try again buu ku leeyahay. maxaa yeele shortcutkan marka ma shaqeynayo flash diskiga, laakiin markaad soo geliso flash diskigaan soo gelinaynaa, kadibna waa furayaa. right click open ama double click siin kartaa. then waa kana wuu noo furmayaa markaan, maxaa yeele flash diskigii waa soo gelin. waa kana flash diskigii waa kusoo xiray. marka saa u ogow, marka shortcutka faa'iido badan uu leeyahay. marka waa muhiim inaad practical sameyso, inaad garato shortcutka sida loo sameeyo. casharadeena kalena waa soo socdaan. markastaba website-ka ama app-ka barashada markasta iska fiiri in cashir lasoo geliyey. waa mahadsantihiin, soona dhawaada.